waxaan sidaas oo kale ku faraxsanahay runtii saakay aniga iyo wasiirka gaashaandhigaba inaan idinkugu nimaado xeradiinaan magaalada Kismaayo waxaan rabaa runtii ma ahan markii noogu horeysay oo halkaan nimaado mana noqon doonto insha Allah taala markii noogu dambeysay waxa kale oo saaka halkaan u soo istaagnay inaan guud ahaan howlaha aad ku jirtaan ee aad u haysan qaranka Soomaaliyeed ee aad u haysan guud ahaan bulshada Soomaaliyeed aan idin raado aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin runtii ma jirto qofka bini'aadmiga waxa ugu qiimaha badan ee uu bixiyo waa dhiiggiisa iyo naftiisa in marka qofku uu go'aansado inuu dhiiggiisa iyo naftiisa uu bixiyo qarankiisa ummadiisa una adeego ayadoo aanay jirin wax interest iyo gaar ah ee uu ka leeyahay waxay leedahay macna kale ay leedahay mana ahan dabcan wax qof kasta ee qalbigeeda si fudud uga soo go'i kara ma aha waa hawl dabcan waa wax ku salaysan wadaniyad dal jacayl iyo dad jacayl waa wax bulshooyinka ama muwaadiniintu waxay wada leeyihiin wadanka waxaana ka wada saaran mas'uuliyad guud laakiin haddana wax qof walba ka imaan kara ma aha marka guud ahaan intiinaan saaka halkaan taagan iyo inta naga maqanba inaad go'aansataan inaad naftiina u hibaysaan ummadiina inaad dhiiggiina u bixisaan iyo dhididkiina dadkiina iyo dalkiina inaad ugu adeegtaan ummadiina si hagar la'aana oo shaki la'aana inaad u bareertaan wax kasta ee culays iyo caqabada ah ee jira si aad u badbaadisaan ummadiina ugana qabataan cadowga ay ugu horeeyaan nimanka qawaarijta oo maanta baneestay naftooda iyo maalkooda sharafkooda iyo cisigoodana ku ciyaaraya inaad ka dul qaadaan runtii waxay leedahay macno kale waxaan idin leeyahay aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin runtii kelimada aan afka ka dhahno kuma soo koobi karno ee macnaha ay taasu leedahay laakiin waa wax qaluubta madaxda qaranka idinkugu jira waa wax qaluubta bulshada Soomaaliyeed idinkugu jira waana wax dabcan taariikhdu ay qori doonto qof walba muwaadina ama qof walba oo sameeya dabcan taariikh sameeya maalinta uu ku jiriyo hawlaha adag waxa laga yaabaa inaan la wada arkayn laakiin waxa dhici doonta maanta waxa aad samaynaysaan maalin buugaagta laga akhristo oo ay qormaan taas ayaa la gaari doonaa haddii Ilaahay yiraahdo waxaad la socotaan guud ahaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed argagixisada arxanlaawayaasha dagaalka ay kula jiraan oo gobolada dalka qaybo kamid ah badan ay kula jiraan waxaad sidaas oo kale la socotaan muddooyinkii ugu dambeeyay jabka iyo halaaga ku dhacay welina ku socda waxaad sidoo kale la socotaan adinka laftirkiinu qaybta aad ka aheedeen la dagaalanka nimanka deegaanadan hadda aad ku sugan tihiin waxaan rabaa marka inaan idiin sheego guushu way dhowda meel fog ayaa laga soo bilaabay wadda dheer ayaa la soo maray maantana meel la soo gaarsiiyay waxaan rabnaa marka inaysan nagu sii dheeraan mar haddayna hor taallo oo aan kaanan hurayn mar hadday daadinayaan habeen iyo maalin dhiiggii ummadda Soomaaliyeed mar hadday ku ciyaareen sharafkii iyo cisigii ay dadkaanu lahaayeen mar hadday hor taagan yihiin noloshii iyo horumarkii ummaddaanu ay heli lahaayeen hadday hor taagan yihiin xoogaysigii iyo awoodaysigii dawladnimada Soomaaliyeed waxa noo furan oo kaliyo waa inaan gacanteena uga dulqaadna kana dhamayna waxaan rabaa inaan u mahad celiyo guud ahaan anoo fursaddan saaka uga faa'iidaysanaya bulshada Soomaaliyeed ee ku sugan gobolada kala duwan ee dalka ee garab istaaga ciidamadooda qaranka ee qaybo kamid ah qorigooda qaateen ee qaybo kamid ah ay biyaha siinayeen ciidamada ee qaybo kamid ah ay caafimaadka la daba taagan yihiin waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan filayaa taas inay maanta marayso inaad garateen meesha kaliya ee guushu ku jirto iyo sida kaliya ee la isaga dul qaadi karo nimanka argagixisada sidaas oo kale waxaan rabaa inaan halkan baaq uga diro nimanka argagixisada qolooyinka ay qaldeen ee hawdka ku jira ee habeen iyo maalin ay dhibaatadu ku dhacayso waxaan leeyahay igana dabcan ma jirto wadda idin furan oo kale oo aan ka ahayn inaad isu dhiibtaan ciidamada qaranka inaad isku dhiibtaan gacanta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qof walba meesha ugu dhow ee xoogga dalka Soomaaliyeed ku sugan yahay inay isu soo dhiibto haddaysan taasu dhicin waxa waaye laba wan baa taalla ama dhimo ama isdhiib wax kale miyaa u furan dhalinyaro wax kale miyaa u furan wax kale miyaa u furan wax kale u furan uma jiraan
labadaa unbaa u furan waxaana rabaa inaan halkan ka caddeeyo qolooyinka weli sii adkaysanaya ee isla berri aad isdhiibi doontaa maalin aan la aqbali doonin inaad gaaraysaa isdhiibista meel fog inay jirtana uma malaynaayo aad iyo aad ayaan idinkugu mahad celinayaa guud ahaan howlaha aad ku jirteen aad iyo aad u mahadsantihiin aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay mar kale inaan saaka halkan idinkugu imaado sharaf iyo karaamo ayaad leedihiin waxaan idin leenahay ilaahay ha idin xafido Soomaaliya 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 xoogga dalka cadowga Soomaaliyeed cadowga Soomaaliyeed cadowga